munaasabadan lagu daahfuraya mashruuca hoos u dhigista isticmaalka dhuxusha Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka maamulka Galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug, wasiirka biyaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Galmudug, madaxa ka socotay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Mashruuca yareynta jarista dhirta ayaa waxaa daahfuray ugu horeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ahna kusimaha madaxweynaha Cali Gacal Casir iyadoo goobtaas daahfurka mashruuca lagu soo bandhigay muuqaalo lagu wacyigelinayo dadka oo ka turjumaya dhibaatooyinka ay leedahay xaalufinta deegaanka. wasiirka biyaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda mashruucan ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay ku howlan tahay diyaarinta sharci looga hortagayo jarista dhirta deegaanka. ahmiyad badan buu leeyahay dowlad goboleedka Galmudug sidaad uga warqabtaan dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo ay u horeyso xaalufinta dhirtii oo la jarayo oo si bilaa micno ah loo jarayo oo dhuxul laga samaynayo oo haddana la dhoofinayo oo aysan ahayn mid local consumption ah ama dadka deegaanku ay isticmaalayaan xitaa aan ahayn ee la dhoofinayo. runtii presentation bay wasaaraddu soo jeedin doontaa oo inaan sida ugu dhaqsiyaha badan hindi sharciyeedkii dhuxusha inaan diyaarino ka wasaarad ahaan golaha wasiirada horgeyno deetana golaha baarlamaanka aan ka ansixino kabacdina tuulo kasta iyo degmo kasta iyo gobollada Galmudug oo dhan aan geyno oo ay ka dhaqan galaan oo dhirta la jarayahay ee bilaa micnaha loo jarayahay aan xadidno dadka ku howlanna aan wacyi gelino hiwaayooyin kale oo ay ku shaqaystaan ama professional ay ku noqdaan. agaasimaha waaxda dhirta ee daaqa wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka Soomaaliya Xaashi Cismaan Maxamed oo asaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in muhiimad gooni ah ay u leedahay dhirta maadaama dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad ku tiirsan dhirta oo danta shacabka meel kasta jooga taabanaysa anoo ka wakiila wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee federaalka khaasatan wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Mr. Saciid sidaan ogsoonahay dhirtu dhuxul haddii la maqlo waxa waaye waxa laga sameeyaa waa dhirtuna waa nafley waxaa ku nool xoolaha iyo dadka xooluhu waa ku nool yihiin waa cunaa dadka laftigiisu waa cunaanoo miro iyo waxbay leedahay kaloo laga cuno marka haddii dhirtii la waayo waxaa lagu nool yahay oo boqolkiiba intaas ku nooshahay waxa waaye waa xoolahan ku nool xoolihii meesha hadday ka baxaan dadkuna inay ka baxayaan isweydiin male dhibaatooyinka ugu daran ee dhuxusha sida hadda uu wasaaradda deegaanka ay ka shaqaysay waxa waaye isticmaalka deegaanka maahan waxa dhibka hadda ku hayay waxa waaye dhoofka laga dhoofinayo dhuxusha oo deegaanka laga dhoofinayo deegaan kale la geynayo oo aan maamulka Galmudug ka tirsanay in macna baan la saaro dhuxushaas madaxweynayaashii ugu horeeyay oo ku meel gaarka ah waa ka hadleen go'aamay ka soo saareen United Nations go'aamay ka soo saareen jimcada qurumaha ka dhaxaysa qola kasta waxaa la mamnuuciyay dhirta Soomaaliya ku jirta dhuxul ahaan in banaanka loo dhoofiyo laakiin aad ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ahna kusimaha madaxweynaha Cali Gacal Casir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhibaatooyinka dadka soo gaaray ay qayb ka tahay xaalufinta deegaanka tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladda dhexe ee Soomaaliya taasoo keentay in marka qaar ay dhibaatooyin ka dhashaan oo runtii abaabulkan gacan weyn ka geystay iyo waxa kaloo mahad celinayaa wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka iyo xanaanada xoolaha oo runtii aan ka dareemayno garab istaag wasaaradda ay isku seeyaan inay maartay hil iyo hooba la soo garab istaageen waxa kaloo mahad celinaynaa hay'adaha runtii isku soo xilqaamay baranay
dhirtana waxay ka mid tahay waxyaabaha meelaha ay ku taalo ku soo jiita in roobku yimaado oo soo jiita oo markaas roobka oo meesha ka hooro laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala meel alla meesha uu doono ayuu biyaha axmed maxamed xasan axmed suudaani Jubaland TV magaalada Cadaado.